dadka waxaan ka mid nahay aniga adiga ee Ciraaq oo ugu galay markii la dhaqaayay runtii aniga markii aan fiiriyay adan ku qabtay waxaan dhahay ninka biyaha ku shubaya ma dhimanina fiiribal ana haneedkii iqaabka u qofka badnaay ما الله أنا نو قصلا يا أبو ملينا والله أنا خسلا يا دمنا أنا نو قصلا يا أبو ملينا والله أنا خسلا يا دمنا إن لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت سيدا أن لوضع سعنو مانتا وحا مقالة المقدشو كوغيريودي إلهي هاون حريستي مجاجلستيه عانكها عبد المريد ديري أجاكيس وصومالي انت بدن آد وود جرينيسي هذا مهمة ما أهن جريديسا إن أن حوج أن سارنو بلسه عبد الله حرسي كلمي أو أقسمها تي في يونيفرسال حتى أجاكيس وكمل هادتك تي في جاسي كهول جليي ayaa waxa uu ka xaqiijiyay ama mataqaanay ka waramay markii uu geeriyooday Ajakis iyo halka lagu aasiyo aaska qaran ee loo sameeyo ayuu mataqaanay uga waramay bulshada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed baa meel kasta oo adduunka kaga nool yihiin baa geeridani waxa ay ku noqotay geeri naxdin leh aad mataqaanay ay uga xumaadeen kullay xumaan ma jirto oo qof kasta maalinka uu leeyahay ma dhaafi karo mana dhaafayo ninka Soomaaliga uu leeyahay kaliya ayuu dhimanaya kamana hordhacayo kamana dib dhacayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka tacsiyay geerida ku timid Ajakis isaga oo uga tacsiyay ehelkii qaraabadii uu ka baxay in samri iimaan uu ka siiyo marxuumkana in eebe u naxariisto waxa sidoo kale dadka ka hadlay kamid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya yaa isaga laftiisa ka tacsiyay geerida naxdinta leh ku timid eebe naxariisiisa au naxariistee Cabdi Murid Dheere Ajakis dadka Soomaaliyeed yaa maanta markii aad gasha baraha bulshada yaa waxa la wada arkaya iyagoo aad uga falcelinayo inay aad uga xun yihiin tilmaamayo una duceynayo meel kasto ay joogan taasi waxay ku tusinaysaa tilmaamaha wanaagsan ee مخراتيجي اللي هو ذي هاي أتشكس إن وها قف دتكيسي يدلكيسي بقى أنفعي وح وناكسن أنت بدن أسوق بنجري وحيابها أو بدن أتشكس أسوق بنجري من الدالة ذا يمتقن أو بدنت دتك وجعلي سينجري دول كودا إن إيش علادان دول كودا إن واحد كستكور مريان يو أد وبورنجري وحيابها اللي هو حسوسنا وحكم إذا برنامجكي وكو ذي تي في يونيفرسال فعليها قرنك يكي كلا استغلال المسرح فرن ودad badan oo waliba qurba joog ah dalkan ka maqna indhahooda aad soo jiitay ka qayb galeen kana hadli jireen marka geeridiisan maanta nin kasta oo maqlo aad buu mataqaanay oga naxay ogana naxaya wax nagu cusub bay mataqaanay noqotay waayo waxa na soo gaarisay aan hore u maqalnay isaga oo caafimaad qabo in isbitaalka marka hore uu tagay kadib lagu yiri sanbabada ayaa nabar kaaga yaala qalliin bad u baahan tahay qalliinkii markii la seexiyay kadibna koomo uu galay ilaa hadda la xaqiijiyay in uu geeriyooday hadda waxa la wadaa qaban qaabada aaskiisa mataqaan Muqdisho ka socdo waxa la rajeynayaa in aas qaran loo sameeyo maadaama nin qaran uu ahaa bulshada magac iyo maamuus intaba kulaha qomadana ma aha wax asiga galin fahanti ماذا واحد الجلية أكسجين كركيوان وحلاده يعني إنه صفة لقى بخي مدام سكر إيدي كرقبة كوماذا واحد أو لجلينا واحد أصير إسكجلي معها واحد سأل لين الإيشير الأساسي هاي فرق من أوضح هاي لأن علي وعلم لين الكوماذا لين وأساق رسول لين ها أنا قصاص أنا الغيري isbitaalka lugihiisa ku tagay asoo lugihiisa qabo oo socdo lagi oo tagay isbitaalka marka waxa la dhahay sababaha xogo fashin jiro marka dhaqitaanka tubooyinka la gelin lahaa waxa la yiri asoo soo jeedada man gelin kala suuxinayna suuxiskiisa lagu suuxiyay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahi ha u naxariisto halkeen Murid Dheere Ajakis waqtigiisa dhamaaday bariyahan ayuu xanuunsanaa hawlihiisa waa la soconay buu xanuunsanaa una ku soo booday xanuunkaas dalka loo geednaa qadaha bariyahan xanuunkaas la tacaalay saakan ajiishiisa waqtigiisa dhamaaday ya Allah naxariis maalka wuxuu ku dooriyo ummadda Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin caana
jannada ka waraabiyo sakaraadka waa gudbay ilaahay su-aasha u saxo intaas aan dhihi lahayn agaasima allah u naxariisto marka ajakis geeridiisa goormadii soo gaartay anaaba joogay salkan joogay oo saakeenaaba la joogay waya ogaanta ajakis ifka inta ugu tagay iyo xaasaskoo ka tagay caruur badan ka tagay allah u barakeeye ilaahay jannada ka waraabiyo waa in loo duceeyo un baan rabnaa haddii ilaahay ma badanna waa ka tegin ilaahay jannada ilaahay ka waraabiyo goormee marka la qorsheeyey in la aaso halkeese lagu aasaya oo qorshuu yahay hadda ka familiga u fadhiyo hadda laga dhigtaa wixii go-aan la gaaro insha allah meesha lagu aasay iyo xilliga la aasay ajakis oo ka mid ahaa magaaladiisa caanka ah magaalada isbitaalka ku xanuunsanaa hadda ayaa soo qaaday isbitaalka waxaana ehelada marxuumka ay noo sheegeen lagu aasi doono magaalada muqdisho islamarkaana salaada janaasada ah lagu dukan doono masjid ku yaala degmada xamarweyne gaar ahaan masjidka jaamaca halkaasi oo markii salaada lagu ogo kadibna isla maanta lagu aasi doono qabuuro ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dadweyne aad u fara badan magaalada geedaheeda kala duwan isaga yimid ayaana goobta ku sugan oo markaasi marxuumka iyo geerida xanuunka la qaybsanaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay u naxariisto halkeen almuridira ajagas waqtigiisa dhamaaday beriyahan ayuu xanuunsanaa hawlihiisa waaba la soconay buu xanuunsanaa wuuna ku soo booday xanuunkaas dalka loo geednaa fadaha beriyahan dhan xanuunkaas lala tacaalayay saakana ajishiisa dhamaad waqtigiisa dhamaaday ya allah u naxariisto halkeen wuxuu ku geeriyo ummadda soomaaliyeed wuxuu ahaa nin caana nin qaran uu ahaa inaan u duceyno ilaahay jannada ka waraabiyo sakaraadka waa gudbay ilaahay su-aasha u saxo intaas aan dhihi lahayn agaasima allah u naxariisto marka ajakis geeridiisa goormadii soo gaartay anaaba joogay salkan joogay oo saakeenaaba la joogay waya ogaanta ajakis ifka inta ugu tagay iyo xaasaskoo ka tagay caruur badan ka tagay allah u barakeeye ilaahay jannada ka waraabiyo waa in loo duceeyo un baan rabnaa haddii ilaahay ma badanna waa ka tegin ilaahay jannada ilaahay ka waraabiyo goormee marka la qorsheeyey in la aaso halkeese lagu aasaya oo qorshuu yahay hadda ka familiga u fadhiyo hadda laga dhigtaa wixii go-aan la gaaro insha allah meesha lagu aasay iyo xilliga la aasay